shan qof ayaa ku dhintay tiro kalena waxa loogu jiraa baadigoob kadib markii caawa fiidkii degmada Dila oo ka tirsan gobolka Awdal ay ku soo rogmadeen daadad xoog leh oo ka dhashay roob ka daay deegaankaasi waxa khadka telefoonka noogu warantay Ciidal Cabdi Xakiin oo kamid ah dadka deegaankaasi waxayna tiri haye شو ده الكلام ده اللي يركب كده حتشوفه ده في شغالين haye kadib dadka markii gashay ay ku dhintay kadiga ka baxayaan qaadkii dhigay haye geedii bay fuuleen haye geedii baa laga soo barto kida wixii ragay fuul karay haye wixii dumar aan u la tagay marka waxa la leeyahay shan qof ayaa dhintay inta la hubo inta loo shan baa dhintay wixii kala dadku daw iska badan yihiin qof inta lacagta meesha uu joogtay waa inta la xaqiiqsay inta imika la xaqiijin waa intaas dadkii la arkayo kaliya ayaa leedahay meherada ku jiray ha intii meherada ku jirtay waa intaaso meherada ku qaalintii ku jirtay waa marka roobka imika xagu ka roobku xaga furuu badnayd oo ka yimid meel dadka farayda magaceed dhagaxadka ha ma jirtaa ciidamka wasaaradda caafimaadka iyo mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland wax kurmadeyn soo gaadhay soo gaadhay dhaqaatiirta dowladda balasaabkii kulli gaargasana shabeellaha inta dowladda noogay boorma dadku yimaadeen balasaabkii balaastii dadka caafimaadkii wajibaa imika imse qof baa la leeyahay inta idil aad hubtid laga hadlooday dadka loo kulugay kowdii haye wixii nagaala joogay markii nagaala laga soo qaaday صاحبي اللي هو كير تبدي يكون بعدوتي كل قاعد يجي من ها بور بكين بدي dadkan intuu buu ka dadka qaatay imka waxa qiyaas kala ma jeen caayda inuu soo qaat marka xalay roob awood leeyahay dadka deegaanka suna abaari ka cabadeeyeen siiba deegaanka Dila roobkii inuu inideen maalmihii ugu dambeeyay wax ay ka diyaarsaneen ka diyaar garowha ma jiraan qofka roob uu sugay wala la qofka laawada ilaahay la soo lahaay soo wax laga disaan karo ma inuu fidayo tiiba عبد الرزاق عبد الله الشيخ دعم سكرته تلفزيون كمدح بنان الصومال سبيس channel مقالة برعو